السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما كسر جبتان سود وادا. ما أنت وحان هالكانوا فرنا إن أنكو فرنقين هدي بين مو ده أنت دي سمدون قيبت هدي أفراد. نين أبوانه فنانه لحميسته إنا يرى يا كفر يرست. مركا ففاهين تاسي قدرته أبوانك إلى فرديو ينكر وهرنا استجابته مكرنا دول مريو ده أنت داري يبقى كسب سنتها وين فرنقينا دي هالكان بنغنا سبحانه إن شاء الله. أبوان مكر سولو أدبل ما سنتها ولكن وكاش سادي وسدو سبرامجك لما ولا Soomaaliyeed meel joogaan salaam sharafeed ba salaamayna dhaantadii samadoon dadku codsigeedu u badnaa in soo falanqeeyo qaybta afraad ba maanta dul taaganahay oo soo qaaday alfanaan abwaan balas abwaan الحميس بشر جراسي runta nin dhalinyaro da'yar الدائرية da'yariya إذا أوتر الدائرية aad نوين ما نير niyar way marka dadka ragga dad yani dhalinyarada ragga dumar waxa ahaado dadka dhalinyarada had soo korayaan ama dhalinyarada ee hadda hor kale in dhiirigeliyo way mudan yihiin oo murtida iyo dhaqanka hidaha iyo qof walba heebad u leeyahay lagu dhiirigeliyo lagu ixtiraamo kor lagu soo qaado marka ninka nin da'yar ma sha Allah heebad Ilaahay siiyay marka idin kaga mordhaceen waa isla arkeenay ereydii qaybta samadoon qaybta afraad لكن أعتقد كو إسقى إسكال إريا أريد أساس كله أساس كلوقي موسيقى تنا موسيقى محمد ياري لحنك هيدين شهيد ما باللعبي أديت أوكي هكذا كسبنا إن شاء الله هكذا كودينا markaysay ma curtaano dadku oo Soomaaliyo sabiibtii iyo gallaydiyo sisintii dadku beerto qaran ayuu socdaalaan sahaydeesa u qaataan ayuunbaan samadaayo degi meel ka sarrayso ajaayib muxuu yiri markaysay ma curtaano waa roobkii dadku uu Soomaaliyo dadku yaacayo u yaacay dadku sabiibtii gallaydiyo dadku sisintii ee beertaan ayuun oo qaran ay u socdaalaan ayuunbaan samadaayo degi meel ka sarrayso ما قرأت. ومركي أنت الله هلو. أنت مركي اللي هلو. بان صدقني على اللي كربس كل قاعدة مركز واحد. ها. لكن أنت كورس وصلت ونجيب النووي. أنت كورس دي ما وربع تريد. ما له نص بس كنا صلنا ها. أدي. والله. ما له نص عن العدوى. فلان بلان ربطها. فلان بلان ربطها. samadoon wadeer sawdka meel fiican baad ku sabaaliso saamiyogo saxday waxa soogaysay iyo jawaabteeda soolan haye الله وحيري samadoon wadeer ها ninkii samadoon yiri ninkii koob furay samadoon buu jawaabaya ninkii si fiican samadoon wadeer sawdka meel fiican baad ku sabaaliso saami uga dhigtay ها صح واحد سوي سيء هو جوابتي الصلاة صح ما فهمت هذا وين مركا طبعا واحد يكرنادي وتم عيدو فاهين كلاميسي قليل لكن ننكي وبالي يري جوابتي هذه بالكسر دو جوابت ورت واتر بالقبصو مركا طبعا ننكي صلاته وكقاضي سيفي عم بدورك باللاوضي سمدون سيفي عم بدور باللاوضي والواحد سوي سيء او الصلاة ودي وناكسن بالإيقاهم وأرتو أكيد أنا واحد قال لي قتل مقطع واحد دمبل كسر بندقة أكيد أنا أديت لكن مقال كرتو كروح بدين ما الكروح بدن ومها جوي لو ترى دقن ما أنا ترى ترى كلي يلو دوبي أديت ما كان مراد برش ما يا دوبي مراد واقعتي مراد الله سخر مراد يقول سبي هاي لكن أي قام تغنى يسمي دوبتان كان أديت لكن متبني والله يا أبي نعتذر دائما كان بالله وحائري سمدون قيت أفراد قراسنا لحنك سجوني ها أو كنا قني يوكوقاضي أدبو مثلا حلا لحنك مركا مرباس ديري شو داتن تي سمدون محيطين ما أهميها ما قرني وحوية وطبعا دانتدي وسمدون وجوابتي محيطين شاهد هاي وأنا قيت أفراد هاي حوار نينكو أدر قراسة عضو الله هاي
talent waad leedahay murti waad leedahay abwaan baa tahay laakiin laxamada dadka kale ay leeyihiin kuma soo bixaysid ma taas horta xaqiiqi ha dhaantadii hore jecel dhig ku noolna taasna wuu garab socday laankiisi soomaa si saxdeed ma hentay bad maarta ha marna uu fulay marna uu ka degayay soomaa marka waxaa qurux badan ha tiise ha goonida inuu iska samaysto ama silsilad isaga u bilowdaba laxan u gooni ama silsilad isaga uu intuu bilowdo xaqiisa lagu soo dadka ku rafaaday doona soomaa aad iyo aad dad waxaa jiro yani dadka kale waxay sameeyaan inta badan aan lagu karin ama muxuu ahay ay ku adag tahay laakiin wax asaga sameeyo ay tigtahay macnaheedu u fiican tahay way jiraan dad badan sidaas soomaa marka dad badan oo halkan aan kaga soo hadli doono ama kusoo qaban doono baa ka mid ah ninka yidhaahda Bashiir Garaase abwaane xogaa laxanka dadka kale ay leeyihiin ama lagaaga horreeyey anugu ma jeclaanin waad yar waad garan maraysaa aad iyo Garaase meesha naga hubi inta kale ku fiicanta qaabka usoo labisatay hidii dhaqanka aad qabtay ereyahaadii muxuu ahaa meesha lagugu duubayo aad iyo muxuu ahaa aad bay mataqan u fiicanta aad iyo da'yaridaada iyo ismala haddana mataqaanaa talentiga ilaahay mataqaanaa ku siiyey aad iyo saa ay tahay haddana xogaa laxankaaga ku ekow adiga mataqaanaa iska daa kuwankaaga way shanta Soomaaliyeed seerkii kala xiri sahanada gumaysay markaan soolinay sumcadeena markale hunna saamada taagay haye maxay shanta Soomaaliyeed seerkii kala xiriyo sahanadii gumaysiga markaan suurinay sumcadeeni markale hunna saamada taagay عادي معه markaan de wixii suurino oo gumaysi iyo sahankiisi iyo marka iska geeyo Soomaali nadiif oo isku soo haraan markaan ba sumcadan laga yaabaa inay soo kabato soo kabato horta ninkan markaan ku soo noqday horta ninkan abaan horta ka helay waa gartay qof xajir uu soo jiidanay aad iyo ninkan horta isku eegna aniga asaga haye isku ogtiin ka haye creatimaas dheer iga dheer ya ma inta kala ma timaan waa adu daastay ama waa diisan doonaa waa intaas oo aad bil u yarkaadisa haye mid kale waa farxaan isku usliya hadda mar dhaantadii jecel dhikuno iyo dagaal ugu jiro aad iyo isagu farxaan baa aad iyo uu qosliya magasa aad iyo hadda samadoon iyadoo mataqaanaa dadka qaar qeyri iyo baaki ay muujinayeen isku usliya asaga mataqaanaa waa uu qoslaya aad iyo taa wax ka mid garanaysaa waxyaabaha inta badan cadowada lagu dili ka mid aad iyo markii qof mataqaanaa aad waxaysan waa sunta kaliya cadow lagu duro waa loo qosla aad iyo hadda ninkan jawaabta Muxidiin Shaahid uu siinay wuxuu kaga raayay horta waa qosolka waa qosolka wali u qoslaya haye ku socda badsinaanta jecelo la saaxiiba iyo madax saare haddaan xilka soori lahayn isha saaxar ka galay gawaan saari lahayn dad sinaanta jecel oo la saaxiibay iyo madax saare haddaan xilka soori lahayn isha saaxar ka galay gawaan saari lahayn taas suurtagal ma isha saaxar ka galay sayaan uga baxnaa soo muusa dhihin ninkii video saas ahayd marka haye waxay suurtagal ku ahayn waan gartay hadda Bashiir Garaase wuxuu wataa madaxweyne ama wuxuu wataa xildhibaan xildhibaanka isaga laftiisa oo uu soo fiirinayo muxuu ku qaban karaa iyo muxuu ka bedeli karaa wuxuu fiirinayaa xildhibaanka asaga soo sharaxay lacagtiisa wato haye ma fahamtay qaab beeleed uu imaan marka iniyo anigu reehbele ila dhalatay miyaad maanta iga waxaan kartaa ii qaad dhaanto lagu ammaanayo haye wuxuu salayn baa qorta loo gelin balaaye uu salayn baa laga sheegaya laga sheegi hadda anigoo kale haye halka ma safar amaanka soo hadlaa haye qof ay iimaanay reerka ayaga wuxuu leeyahay wariyaha cukaashow niyow adiga ma taqaanay dadka la hadla maalin kaste aad iyo i ammaan soo fariisay amaan horta malaha aan ku amaana amaanta malaha ma ana og inuu wala haanbo ya ilaahi ya defara diiqadu waa kula jirtaa laftarkaaga ma fahamtay may waan kula jiraayo Soomaali dhan baa kula jirto marka saarka isha maxaa ku jiro ma laga saari karo lagama saari karaa leeda waxa laga saari karaa marka anida Bashiir u diida aad diido oo qofkii saxda ahaa meesha ayda aan u dhiibana madaxnimadaas aad iyo markaas laga saari karaa diid niyow yaa miyaan ka diida ma diideen hadda diida isha saarka wixii uu naga dhex muruglihaas ka saarnay aan diiday ما ديدي ديدي أنا بشير كسوينا بشير نوع كسوينا نيو ديد سوينا المدينة سيلي وعسكري كأبصارة كعاصم تسوليا سامح يوم اللي مو وصانك كان حيد
halkaan wuxuu yidhi dadkii dhan buu ka hadlay shacab ganacsi siyaasi wixii dhan buu israaciyey wuxuu yidhi seylidli wuxuu yidhi sugaanyahanadiiyo seylidliya askari haa shacab sarakaco sunta suuliyaa saamax iyo midnimo loogu sahan taga yacni sugaanyahanada dee waa dadka sugaanyahanada dabcan saa ka mid ah laftirkiisa hadlayaa ka mid ah adigaa ka mid annaga dhan baa ka mid ah adigaa ka mid ah ma garan de waa tahay waa intu fadhida waa yadii haa soo ma garan marka wuxuu yidhi sugaanyahanadii iyo seylidliya askari seylidlaha dee dabcan waa dadkii ganacsatada ahaa suuqa ku jiray seylid markii la seylid marka la suuqa xoolo lagu iibiya ariga iyo lo'da iyo geel iyo xoolo lagu iibiyo geel weyn kan arigan sheegi lo'da iyo geel wenya mogta isaga seylid lama geeyo haye suuqa geela haye seylid waa meelaha yara xoolo lagu xeeray seylidha ariga iyo lo'da iyo maxan la celin kara ma suuqa dhexdiisa magaala dhexdeeda wey waa gartay laakiin geel weyn mogta garoon weyn badan loo raadiyaa waa in meel weyn la geeyo lagu dhaho suuqa geela ha soo ma seylida geel lama dhigan markaas aad iyo aad marka wuxuu yidhi yani seylidlaha dabcan isku soo duduubo waa un ganacsatadii ganacsadoo dhan ha waa ganacsadoo dhan shacab sarakaco sunta suuliyaa saamax iyo aqoon yani saamax iyo midnimo loogu sahan tagaa shacabka laftirkiisa markay sarakacaan oo ay yidhahdaan anu nagama qabato tani alla shacabka maxaa badan bedelayaan siyaasi habelow tusaalaha kuma wadana anagu tusaalaha u dhow ha xilliga maxaakimti ha diidnay intay dheheen hal markaceen kow shacabka soomaaliya haye waxaa la ogaa baa la muqdisho oo intaas baahay alla waxayna baa nabadgelye aad iyo aad meel kasta noqota aad iyo aad ma fahanta ha marka shacabku waxay bedeli karaan waxay bedeli karaa ma fahanta ha hadda shacabka iyaga haddii mataqana ay dhahaan annaga madaxweyne hebel mar hal mar ay caaga qaataan ha ama yidhahdaan ay dhahaan hebel baa rabnaa qof siyaasi waxaa rabnka ee dadka xaggiisa nadiifka ha dadka dhan wada jecel yihiin aad iyo aad asna la rabo inuu bulshada iyada xaqi ay ku lahayd siiyo bedelkeeda oo sidii lagu kacay usoo baxo ha waxaa rabaa inuu lugayo makhaayada ka cuntaga raba aad iyo aad laakiin haddii intii lasoo doorto shacabka yidhahdaan asaga bisaa rabna oo dhiiqo lagu hala galo taas socon mayso adeer fargan baa kugu tuureena ha xirki saamaan sabdhaale sanga kama gudo gaahiseheyga badan sahay kama daye say midnimaadu tahay soo dhoweyn baanu diray halkaasi wuxuu yidhi xirki samaan sabdhale ama sabaan sabdho samaan sabdho iyo sabaan sabdho labadaba waa lagu dhawaaqaaye waa geed aad ariga u jecel yahay ariga cuna ha aad iyo aad markaasuu day dheg la qabto male fusadidi maxaa raacay waxaa weeye arjir aadi warwa muku qalalayn ya muku qalalayn kii qala xawaa yar agigo u daadin la ilaaha illa maga marka wuxuu yidhi xerkii samaa sabdhale sanga kama gude sax sangaduna waxaa yidhahdaa soomaali ahaan koloba wadadii gobolba iskaga hadlaya laakiin yani ereyga lagu midaysan yahay koloba an waxa weeyaan aan u aqaano orgiga markii xiniyaha laga tumo waxaa la yidhahdaa sogob ama jarab labadaas ba soomaaliya labadaas u aqaanaa laakiin abwaanka gobolada dhexe ha yani gobolada dhexe iyo gobolla yani kamid ah dalka soomaaliya qaybo kamid ah baa kaloo sangadaas looga yaqaanaa sax wuxuu yidhi sangal yidhahdaa ha xirkiisa maasabdhale sanga kama gudo gaahisiiga badan sahay kama daye sax yani intuu xirkiiyo maasabdhadii lahoo doogile intuu ka leexdo meel siigaled aadi maayo meel siigalo oo abaara qiiqayso intuu aado dee sahay kama dayaysan soo ma say midnimadu tahay soo dhaweyn baan u diray si kastaba oo midnimada qaadato wax kastoo lagu qaadataba si walba ay tahayba soo dhaweyn baan u dirayaa haddaan abwaankii ahay soo ma garan aad iyo aad waa ku wada nin sabaalanaho qalma soo raaci jira oo min subax aroor sumad looga dhigay midna dabar saxeeya seeta looga xiray nin sabool aan hoo qaalma soo raaci jiray ko alla maqal ma raaca oo mid subax aroor sumad looga dhigay midna dabar sax iyo seeta looga xiray haye يعني هدي أرجع معني زوجود أم فيرنو قلت معني زلا بعض أوصل نقول لأنه معني بقول لي لكن أرجع يعني قاعد يسكوان وحاويان قلت نين صبوا عنها ما أنتوا عير بانه
hase yeeshee nin cayrkaas asal u ahaa miihi oo nin hanti lahaan Hanti lahaan jiray jiray baan oo ahaa. qaalmo dhaqaalaysan jiray Yaan ahaa. baan ahaa sax ma garad qaalmihii mid subax aroori baa sumad liga dhigtayba haye sumad ani aan lahayn baa wasaaray qaalintii waxaa wey haddii aan fikir ahaan ha af soomaali ahaan yacni muxuu ahaye waxaan ka wadnaa ulajeeda ahaan ujeedada loola jeedo ha horta waa shanta soomaaliyeed wey aad iyo aad ma fahantay aad iyo aad saan aniga u fahmin waase u fahamtay ha hore ma fahmay shanta soomaaliyeed wey ha middan sumada looga dhigtay ha ee la yidhi malihid malihid dee waa ogaadanaya ama gobolka loo yaqaano muxuu ahaa Soomaali galbeed. Soomaali galbeed kow wey maxaa la yidhi oo la yidhi Ha, malihid. markii lagu dagaalay Ha. oo Ethiopia iyo Soomaaliya dagaalkaas ka dhacay haye waan leha iyo malihid malihid yaa lagu dagaalay haye sumada laga marso waxa la yidhi annagaa iskale waa Ethiopia Ethiopia xaggaas u dhaqaaqday kow tii kale wuxuu yidhi saytaan liiga xiray dabar sax iyo seetaa laga xiray dabar sax iyo waa laga dafray saytaan liiga xiray haye dee taa waxaa maa in noo istartay northeastern ha kow Ameen. qaalmihii ninka uu daajisanaya mid la dafray mid Maya. soo lagu dhigta laga dhigay maya Ha. saytaan laga xiray taas waa Djibouti waa ictiraaf waxaa la siiyey dowladnimo waxaa la yidhi xagga istaagay iyadu seeta ka dawr baa looga xiray mawsu gaari ma soo gaari kartaba ha ma fahan aad iyo aad saytaan lagu xirayo aad iyo aad xagga loo istaajiyey haye minka hadda labadaasi ha yuu sheegay moogta ha waa mid wuxuu yidhi waa laga mid darasa sumad baa laga dhigtay buu yidhi ha oo midna saytaan laga xiray seetaa laga xidhay iyo kuwa kalena aragno tii sumadda looga dhigtay waa waxaa tiri waa Soomaali galbeed ha tan seetada looga xirtayna waa Djibouti Djibouti laga xiray wariyaa balaayo kale Ifan. haye haye iyo kuwa kalena iyana aragno midna saadaaqaya sadin ugu maqnay midna sugaya waaliye socdaal ku jira midi kalana soldaarinoo soo sasaabi midna sadaqa iyo Mhm. yani sad ba ugu maqnayn kuma maqnabo meelay ku maqan tahayba Inay sadaqani iguma maqno xoogni igama taa waa inay waxay iga maqan tahay lama yaqaan ha wax ka hadla male midna Mhm. yani sugahayo socdaal ku jiro midna waa raadinayaaba waan raadinayaa ha dee taa waa mid hadda aan haysano ha taas weli waa tan aan leenahay war saan ka Wurkaadii, badalay wurkaas aan leenahay, ha. aan leenahay Raadkeeda haya. celinay sug baan leeyahay ha midna soo dhaarinoo Mm. soo sasay soo dhaarin soo sasabi. oo u sabahay oo usu yeerinaya kana waa Somaliland tan Somaliland walaalayaal warkaalaya walaalayaal 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 arka kale arka iyaga inay maya shantii Soomaaliyeed waka saas oo kala baxeen allah laakiin abwaanki yaridiisay isma laha ninku xigmad buu leeyahay aad iyo aad aad iyo aad Yeah. waxaan ku yidhi waa nin aad iyo dhiirigelin u baahan weeyaan ha ha waa nin da'yar ninkan waa in la dhiirigeliyo waa nin dhiirigeliya ha ninka meesha ka hadlay Mhm. shanta Soomaaliyeed say u kala tagtagtay iyo meesha maanta kala taagan tahay ha ha nin cajiib kasta ma iyo sidii loogu qaatay caadi ma aha sheeg ha saadiraho walloho wada sama baxshe dhaqankeeni salguhure socdaalay maanta Soomaali weyn soo xulaagta halkan waa duceey halkan waa duceey saadirow saadirow Allah wada soo baxshay Mhm. dhaqankeennii sal guure socdaalay iyo Mhm. maanta Soomaali weyn Mhm. suxulada u taag buu yidhi Lad u tahay. Ha. waa runtii aad iyo aad waa runtii taa waa meeshan dambe waa duco ducada kaga baxay ilaahay aqbalo la aqbal ha aban haye maxaa ku daraysaa waxaan ku darayaa Mm. dadku Mhm. markay dad guud wada yihiin si fiican way kala yihiin ha ninkan oo kale xigmad baa iskaga jirto wuxuu u baahan yahay in lagu shaqaysto wixii laga faa'iidaysto Mhm. wixii murtihiisa wax laga soo saaro wax laga soo saaro ha buu u baahan yahay aada weyn keliya hadda haddii idinka muusiga iska dhegeysataan ama micnihi sidaas idan u fahansaneenna Mhm. innaguna waxaan nahay falanqeeyayaasha Mhm. inaan toosh idinku ifina mirihii iyo waxay xambaarsan yihin macnaha guud ha marka haddii falanqeynta annada aad ka heshay ama aad ku xidhan tahayba Mhm. waad ku mahadsan tahay Mhm. naga mid aho weligaa saa nagu xidhnow nin waxaan aniga xaggayga Ha. aan codsan lahaa aad iyo aad dhalinyarta ha da-yarta ee haddana mataqaanay wax oranayso ha weliba oran mahe wax bulshada saameyn ku leh anfacaya soo ay saarayso soo saarayso ha in la dhiirigeliyo Aad oo iyo weliba dowladdu ha ee mataqaanaa kaalin muhiim ah inay ka qaadato ay ka qaadato hadda wasaaradda hidiga dhaqanka ha waa wasaaradda warfaafinta hoos timaadaa ha aad iyo aad in mataqaanay dhalinyartan oo kale Mhm. in intay raadiyaan ha ay mataqaanay ay abaalmarino siiyaan abaalmarino siiyaan dhiirigeliyaan. geliyaan Ha. shaqooyin mataqaana u abuuraan muxuu ahaa, daraad maxaa arkay hor socda. sheeka adag ku watee Mm. tiktok Ha. baa dad laga abaalmarinayo tiktok maxaa yeelay waa de waxaan la yaabanahay bal u kaadiyey macne ku fadhidaa Ah. macne ku fadhidaa sax gabadha habli style baa lahay iyo tan ayadaa fashion ugu quruxsan waxaasaa la abaalmarinaya inti hool loo Haye. hikriyey oo lacagi iyo adduun iyo hibe la siinay ha
dadkan oo kale oo heybad ilaahay siiyey oo xigmadi ka buuxdo wax ku shaqaysta rabana guriga iska joogaan guriga iska joogaan oo cid taqaanaba maaha malaha ilaahay miidan ka baqayn dee ma wax hartaba abaalmarinaysaan wallahi kulli markaas iska gashay ha laakiin dadka muxuu ahaa ilaaliya luuqada soomaaliga ha iyo dadka ilaaliya suugaanta ha waa in la socdaan dhalinyarta ha abuurka leh aad iyo aad inay la socdaan oo dee bahashi muxuu ahaa iska dhexyaaco iska hadal ma ahay dadkii quman ee wax alifayo saasaa la rabaa ilgaar lagu fiiriyo aada weyn aad iyo aad daawadayaal waxaan intaas kusoo koobaynaa barnaamijkan kooban maanta aan ku falanqeynay dhaantada samadoon qaybteeda afraad iyo bashiir garaas intaan dhaantadan mid ahayd ku kulmayno nabadgelyo nabadino